سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كسو دواada xalqadii labaad ee taxanihii murugta badnaa socdaalkii geerida Soomaaliya ilaa Yurub qaybtii koowaad kanaalka gudihiisa ayaad ka helaysaa waxay inoo joogtay iyadoo guri la dejiyay dadkii muhaajiriinta ahaa intay ka ambabaxayeen kadibna xilli habeen ah gaari caasi ah lagu soo daabulay oo magaalada banaankeeda la keenay aakhirkiina gaari loori ah dushiisa lagu raray iyagoo isugu jira rag iyo dumarba waatan iyadoo uu sheekada inoo sii wadaya wiilkii ay qisada ku dhacday gaarigii wadada ayuu cagta saaray kadib markuu nasagootiyay atoorihii tahriibka ee dhinaca Khartoum dabayl xaga ayaana garaacaya gaariga korkiisa gidaarka dhigaha gaariga ayaan ku tiirsanahay fikirka ayaa xooga ay jiitay waxaan is weydiiyay maxaa qadartu ku qarinaysa oo ka horeeya ilaa Yurub sidee xaal noqon doona wadankee u gudbi doonta shaqada aad heli doonto iyo reerkayga oo aan qaar baadiyaha uga soo kacay qaarna Muqdisho oo dagaal ka socdaan uga imi sidee wax u tari doona waxaan xasuustay hooyaday oo aan ka soo dhaqaaqay iyadoo ii baahan aabahay oo da'si noqonay oo tuuladii marba intuu salaada casr ka istaago dhahaya muslim oo faatixada ii soo maray wiil ayaa iga maqanay inuu Ilaahay nabad igu keeno waxa maskaxdayda soo hormartay ardayda Suudaanta oo dhulkooda ku nool dawladna haysta jaamacadana la siiyo haba dhibanaadaan laakiin fursooyin aan haysan ay heli karaan waxaan isiri idinka ayaa dalkiina idin diiday inaad ku noolaataan oo heladiina ku dhex jirtaan yaa idin baday inaad qaxooti iyo tahriib ahaataan silican iyo saxariirkan aad martaan fikirkaas dheer anoo ku jira gaariguna xoog u soconay wado qardajeexa oo aan dad iyo duuyo u dhaweyn marayo ayaan ku soo barbaarugay iyadoo la leeyahay subaxnimadii ka soo dega halkan ayaa degaysaan meeshu waa dhul cidla ah geedo yar oo gaagaaban ayaa ku yaala ciid ayay u badan tahay halkii ayaa la yir ku daatay gaarigiina waa tagay hal nin oo dameer haysta ayaa meesha jooga oo biyaha ku soo dhaamiyay wax kale ma yaalaan waxaan soo gaaray goobtii saxaraha ahayd ee dadka lagu ururin jiray Khartoum banaankeeda waa meel cidla saxaran ah geedaha hoostooda ayaa dadka lagu daadiyaa waxaad goglanaysaa maradaada boorsadaadana waad barkanaysaa cirkuuna waa ku furan yahay dabayluhuna hadba dhinacay kaaga iimaanayaan dadka intooda badan ciid ayay seexdaan halkaas ayaa baabuurkana lagu keenay oo aad u sii ruqaansanaysan xagga xuduudda iyadoo mar walbana saan filay ay muharibiintu dhowrayaan wadada iyo sida xaalkeedu yahay sida caadada ah wayna dadku marxaladan ka gudbaan maalin ama laba gudahood laakiin anagu 9 cisho ayaan fadhinay hal mar ayaa wax la cunaa waana bariis basal koosaar looga dhigay biyahana waa la helaa maalmahaas aad ayaan ula yaabanay bariis qalalan oo basal lagu qusaarayo laakiin wuxuu noqday maalmihii ka dambeysay sida hotel 5 star ah oo aan la heli karin laba maalin waxay noqotay 9 cisho waxaan noo sheegay markaanu Khartoum ka soo baxnay meeshaas in dhaqsina loo ka qaadi doono maalin abalaba gudahood laakiin 9 maalmood ayaan fadhinay oo dabayshu dhinac walba naga galeysay waxaan ugu daran waxay ahayd dabaysha iyo bacaadka waxa dhici karta inaad seexato kadibna aad soo kacdo adigoo daboolma oo ciid ku qarisay dadka meesha isugu yimi aanu socdaalka wadaagno waa dad kala duwan dhinac walba qaar waa Mooriyaan Maleeshiyaad iyo hogaamiye kooxeedyo qaadka ay cunaan sigaarka ay aad u cabaan shaxda ayay ciyaaraan maalintii salaadna ma tukadaan laakiin markii aad tiraahdo walaalayaal salaada tukada qaar ayaa ku caynaya hooyada waxa ku samee qaarna waxay leeyihiin daahir miihi dharku daahirama iima aha kuwa ugu fiican waa kuwa ku yiraahdo Ilaahay ha isoo hanuuniyo qaarna faal ayay dhigaan sida mid ka mid ah kooxdayadaas faal ayuu dhigay maalmo kadib wuxuuna yir gaariga ayaa jabi doona dadna waxa gaaraya waxa dhici karta male inuu ku dhisayo waayo saxarahan gawaaridan oo kuwa wada fac weyn ah inay jabayaan shaki kuma taagna qaar ayaa meeshan isku shukaansanay wiil dhalinyarada kamid ayaa igu yiri gabadhan ayaanu isla tahriibayno igu meheri waa muuqatay inay shukaansanayeen waxaan ku yiri sideen kugu meheriyaa weligeedii iyo dadkeediba cidba kama haynee waxa yeeleen kadib ma garanayo oo safarta hawsha badan ayaana kala mashquulisay kooxdayada oo dhan 76 qof waxa dumar ka ah 9 oo kaliya inta kalena waa rag dhalinyaro u badan waxay u qaybsan yihiin dadkoo dhami in ka timi koonfur iyo in waqooyi ka timi gobolada bari cid kaga ma jirto 27 wiil iyo gabar ayaa dhanka waqooyi ka socday waxa goobta loo kala degay sidii loo wada socday ama isku raas loo ahaa ama isku jecsin koox yariba meel ay degtay salaada 40% ayaa tukata dumarka ilaa 5 waa ay tukadaan ragga tukada meel ayaan maalintii isku jimacsan jiray subaxa iyo habeenkana nin walba meeshiisa ayuu ku tukan jiray ragga oo dhan da'doodu waa 20 ilaa 30 inta u dhaxaysa dumarkuna sidoo kale hal haweenay ayaa moodaysaa inay 40aadki gashay dumarka hal mid ayaa ninkeedu la socdaa inta kalena waa wada tahriibayaan ayaama kulul waxa ninkiina soo tahriibinay Khartoum naga soo qaaday ku heshiinay in meeshan maalin laba maalin aanu joogayno laakiin 9 maalmood ayaanu meeshan cilada ah fadhinay oo dabaylaha xagaaguna garaacayeen
waxaa kaaga daran kuleylka oo darajada heerkulku yahay 50 darajo laakiin qof walba wuxuu leeyahay dhib ma leh bari ayaa laga gudbayaa Yurub ayaa tagaysaa waxaana waad hilmaamaysaa markaan la hadalno mukhaliskii ma aragnaa markaan la hadlo maxaana loo qaadi waayay mukhaliskii Khartoum ayuu ku mashquulsan yahay jabhad ayaa jirta jidka ayaa xun mar ayuu noo yimi raashin kish boorasho iyo kish basala ayuu noo keenay markii dambe oo aan soo baxaynayna waana soo sagootiyay wadadii xuduudda Liibiya ayaan ku jeednaa barqadii ayaa laba gaari oo looriyaal ah fuulnay Siisu iyo Biichi luga badan bacaadka la dhex maraya Suudaan ayaa baabuurta wada laba dareewal afar kirshbay iyo Sanaami oo ah batrooniga safarta wada waana Suudaani qandaraaska ninkan ayaa soo qaatay oo kii Soomaaliga ah ka soo qaatay meesha la maraya waa qardajeex tahriiba wada gaari loogu talagalay maaha gawaaridu waa qanaxan meel la gaareen hawadu waa kulushahay sida darteed xoogaa yar markii la socdaba waa la istaagayaa bir ayaa xun lugta ayaa banjartay biyaha kululaaday soo dega dhulka fariista maalintaas oo dhan ayaanu soconay habeenka oo dhan ayaan tukubaynay marna soco marna fariiso subaxdii dambe waabirkii ayaa la yiri ma dhaqaaqi karo ilaa 150 kilomitir ayaan 24 saac oo kaliya soconaynay guddi saddex Soomaali ah ayaa Soomaalidu leedahay oo kuwan kale la hadla gaarigii waa jabay markii aan meesha fariisanay waxaan la hadalnay ninkii Suudaaniga ahaa ee tahriibka waday Soomaalidu waxay tiri ninkii Soomaaliga ahaa ee Khartoum fadhiyay nala hadal siiya way la hadleen wuxuuna yiri meeshiina jooga waan idin imaanayaa raashinkii iyo biyihii waa yaraadeen dadkiina waa tabar dareeyeen meel dhul banaana oo geeda aan lahayn geedaha in caleen aan lahayn bacaad ayaa la yiri ilaa bari ayaa joogaysaan biyaha la cabiro habeenka meeshii ayaa la bariyay ciidana la iska seexday waxba lama karsan waa laba habeen iyo labadoodii maalmood oo aan wax la cunin wixii yaraa ee dadka jicsinka ugu haray mooyee taasoo 9 cisho ku soo dhamaatay biyaha waxa la bilaabay in loo cabiro koob yar ayaa la siinayaa caag yar oo nus litir ah ayaa dhexda laga goynayaa rubicis 25 mg ayaa subaxii lagu siinayaa ama wax ku karso ama cab haddii shaah ku daran yahayna shaah ayaad ku karsanaysaa haddii kalena mar ayaad fuuqsanaysaa maanta oo dhan biyo dambe il saari maysid ilaa bari subax war saxaarihii aan 9 maalmood fadhin ayaaba noor hoonaa saabiyaha ayaan bahiri jiray oo ninkii shaqaalaha ayaa dameerka mar walba ku soo dhaamin jiray laakiin shaaha maxaad u karsanaysaa ma maqal miya qalabka jidkan wax lagu karsado qasaacadaha fuulka ama furudka laga dhameystay ayaa shaaha ku karsanaysaa kuna cabaysaa haddaad doonto fariiraha ku gubanaya ama ku dilaacaya ama ha ku gaduutaan galabnimadii ayaa markii dadku naf gaaray qaarna daatay ayaa intii oo kale loo miisay odaygii waa yimi subaxii dambe ayaa ninkii Soomaaliga ah ee Khartoum naga soo tahriibiyay welina isagu mas'uul naga ah ilaa aan kuwa Liibiya ku wareegno meeshii yimi biyana ma keenin laakiin gaariga ayaa birihiisi la soo sameynaya ayaa la yiri halkiina jooga ilaa 3 maalin ay qaadanaysaa in Khartoum la geeyo la soo sameeyo gaariga hoostiisa hal seexdo ninkii meelahaas duurka aadayna waa isaga laakiin haddaad socoto xageed aadaysaa waxa bilowday su'aal war ma sidan ayaa lagu jiray ilaa xuduudda Liibiya soo lama oran dhulkaba waxa laga gudbayaa 5 ama 4 7 cisho haddana waxaan ku jiraa 13 maalmood oo maalmaha ugu dambeeyay aan waxba dhunta la marin alla nimanka tahriibka sameeyaa been badana oo arxan darana halkii ayaa dadkii ku daatay nafina waa haysaa mar ayay yiraahdeen nimanka Suudaanta ee gawaarida wada qoryo soo gurtay aan shaahidin karine laakiin yaaba socon kara hadduu socdana yaaba qoryo meesha ka soo helaya intaanu cabaar socon ayaanu qori qallan oo shaah lagu karsado xitaa soo weynay isha durdurka iyo askartii Suudaan subaxii afraad ayaa anagu nafa meeshan ka soo dhaqaajiyay waxaan soconay 24 saac oo xiriir laakiin qardajeexa oo baabuurka marna ciid galayo marna uu istaagayo oo kolba meel saacad aanu fadhiisanayno subaxii ku xiga ayaanu meel durduro oo ilbi ah ka socoto ilaahay baa mahadle waxba yaan la cunin hadii biyo la helayo ayaanu isniri biyihii ayaana ku sii daadiyay sida xoolo xerada laga soo daayay ayaan ugu qamaamnay wixii socon karay biyihii ayaa si fiican loo caabay kadibna waxaana la ku guray hal gaari oo weyn anagoo 76 qof ah markii aanu saa u dhaqaaqnay mise waaba gaari cabdi bila ah oo nooca askartu qaadato ee dhabarka qaawan ayaa halkan murka soo yiri waxaana dushiisa saaran unug askartii Suudaanta ay xuduudaha iyo duurka ilaalinaysay war ilantanina waa inoo laabneed anagii naxdi ayaanu is eegnay qof walba waxa uu sawirtay in dhaqsi loogu celinayo Khartoum xabsiyadii Suudaantana la soo booqanayo xalqadii labaad intaas ayay inoogu eg tahay kuwii hore waxaad ka helaysaa kanaalka gudihiisa kuwa dambe si aad ula socotid subscribe saar kanaalkan gambaleelkana fuuro si aad taxanahan xanuunka badan ula socotid ugana digtoonaatid